بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دمان أصحاب قيمة يقايها له كسر هذا سولا بورتال وحان دين هنا برنامج آدي هذا حساب بدن حوجا technical problem أياد عاد مركب بقول كيف بقول وانو كعذر دارنا هنا صوبته ما نفيلين لكن كقرن وحبري بعتمله مركب عبد الملك مركب لا ينسدوا له مركب هدي وقلي وايو waxaan filayaa cabdi malik soo dhawo mar kale waan ka xumahay xogaa waxa dhacday technical problem waxaan filayaa Soomaaliya kiis waa wanaagsan yahay kan laga yaabo Ingiriiska in dhibku ka imaanayo marka waxaan sameynayaa codkay waa maqlay Soomaa cabdi malik عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيفيان aniga codkaaga xogaa waa iga yara fog yahay laakiin soo dhawo mar kale waxaan inayna barnaamij aad u xiiso badan waana ka cudur daaranaynaa barnaamijyadii hore ka baxay marka sii qaybiye cabdi malik adna sii share gare adigoo mahadsan waa Mr. Cabdi Malik Muuse Caldoon oo imika ku sugan wadanka Soomaaliya ku sugan waxaanu ka hadlaynaa Soomaali galbeed ayaanu ka hadlaynaa XDDSI dawlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia la oran jiray isbedel ka dhacay marka mar kale aan ku soo laabto hadduu go'aano marka waxaanu idin leeyahay hawadan ku macsalaameynaa ilaa aan ka helno qaab kale oo loo duubo marka waa nasiib xumo Cabdi Malik samafale wariye educator runtii aad ayaan ugu faraxsanahay caawa inaan isqaabilno su'aasheeda koowaad oo aan doonayo inaan ku soo laabto dadkuna ay mar kale dhageystaan saddexaad ay dhageystaan waxay noqonaysaa isbedelkii uu ku yimid Dr. Abiy Ahmed wadanka Ethiopia wax saameyn nooce ayuu ku yeeshay gabi ahaan Soomaali weyn ama mandaqada geeska Afrika ee Soomaalidu ay degto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا محسنت عبد الناصر إسماعيل برامج كان أديكم مرتقى عضي أي نكجاه الله إنهم هاي أربعة الصومالي ده إسبدل ككوي ميثوبيا هرتا مركب جوه الرئيسة وحندوننا إن ودوجانا دمانتين إثيوبيا وإثيوبيا وحوشراء وحيابا هاي ثوابتها وحيابا حق إذا لما تابتانا madaxweyne kastoo yimaada iyo ra'iisul wasaare kastoo yimaada oo ku shaqeynayo dana ay leeyihiin oo ay ka leeyihiin mantiqada ayaa jirta taasi horta waxa weeye mar kastaba marnaba maxaa isbedel mayso inay mar cusub iyo si kale wax u dhigto mooyaane laakiin waxa weeye halkii ayay kaga haynaysaa Ethiopia isbedelka ku yimi oo aan ahayn mid ay iyadu nidaam ahaan ay rabeen oo laakiin ka yimi xagga shacabka cadaadis shacab ku yimi waxa runtii luqadda imika ay ku hadlaysaa Ethiopia waxa weeye luqad aynu wada heshiino aynu muxuu ahaayay dawladii la jaarka Ethiopia gudaheedii yani luqa tasaaluxiya luqad yani waxa weeye bog cusub baynu furaynaa waxa weeye horeynu soconaynaa iskaashi wanaagsan baynu sameynaynaa imika waxa weeye waynu arkaynay boqoshooyinkii ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu ku sameeyay dalalka jaarka waxay ahaayeen inuu soo sameeyo yani iskaashi istiraatiijiya oo muxuu ahaayay ay gogoshiisu tahay iskaashi dhaqaale bog cusub oo ay tahay aynu kala faa'iideysano waxaan ummad noocaas ayaynu nahay oo mantiqada ku abuurana aynu kala faa'iideysano oo aanay noqon muxuu ahaayay nacayb iyo dagaal oo aanay noqon luqadaas ku hadlaya luqadaas ma xuma laakiin saynu sheegnay Ethiopia يعني واحد شراء حاجة واحد لما تابتانا ضمع أي كلا هذا منطقة أيها شراء تاسي مرنا بمحاي بدل ميسو وحكلوا رنتي حسينا محاي وحيابا كوي منيا الصومالي ده تابنا خاصة المملكة واحد شراء يهرت يعني سندهن وحقوق أكتاي ده كي سودي بيشرين إناني محاي ما أنت إثيوبيا أنا قدومي خاصة سندهن إمك إن كشرنو وحلقة قدومي يا مشران عدة سودي بانو لقدومي يا مشران cid kasto ay soo dhiibaan waxa laga yaabaa inuu ugu noolaado maxaa dhulka Ethiopia isagoo maxaa karaama leh waxa ku soo afmeerina su'aashaas yani waxa weeye luqadaas ay ku hadlaysaa laakiin Ethiopia danay ka leedahay ma xuma sida ay ku socotay ilaa imika hadday saa kaga dhabayso wax wanaagsan baa ka dhalanaya mantiqada bariga Afrika laakiin Ethiopia waa gartay dhulka ay ugu yeeraan dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iminka loo yaqaan Soomaali galbeed isbedelka lama filaanka ah yimid ma waxa ka dambeeyay Dr. Ahmed Abiy ama dadka deegaanka ku nool ee Soomaalida
isbedel baa runtii ka dhacay muxuu ahaayey guud ahaan Ethiopia iyo meelaha ay haysato Ethiopia oo uu yahay muxuu dhulka Soomaalidu uu ka yahay isbedel weyn baa ku yimi oo taliskii ayaa muxuu ahaayey la bedelay talis cusub ayaa yimi oo siyaasad cusub muxuu ahaayey la yimi طبعا Tigray baa muxuu ahaayey gacanta ku hayay muddo dheer ilaa bilowgii 90aadkii waxa weeye imika waxa qabtay Abiy Ahmed oo ka soo jeeda yani qowmiyadda Oromada aynu dib ugu noqonaynaa xagga taariikhda muxuu ahaayey dhulka ay haysato Ethiopia waxa weeye Soomaalida waxay ahaayeen dadkii aan marnaba muxuu ahaayey nasan oo bilaabay halganka gobonimo doonka dhulkooda la haysto waxay doonayeen inay helaan hal shay bay doonayeen inay helaan inay iyagu aayahooda ka tashadaan halkay raacayaan iyo sida ay isu maamulayaan intaas bay doonayeen wax xaq mashruuca oo xalaal ah marka waxa weeye sanado badan ayuu soo socday waxaynu ognahay طبعا muxuu ahaayey jabhadda muxuu ahaayey wadaniga xoreynta Ogaadeniya Cabdinaasir waxa la aasaasay 1984 Muqdisho lagu aasaasay bishii 8aad 15keedii 34 sanadood ayay jirtaa imika 34 sanadood ayay jirtaa inta halgan bay ku jirtay marna may nasan in badan way xanuujisay Ethiopia Oromada ayaa muxuu ahaayey 3 sano ugu dambeeyay iyaguna kacdoon weyn ka sameeyay gudaha Ethiopia احتجاجات مظاهرات ay kumanaan ku dhinteen muxuu ahaayey dadka muxuu ahaayey Oromada iyo dadka kale qowmiyadda muxuu ahaayey iyaguna laftooda waxa barbar socday amxaarada oo iyaguna muxuu ahaayey yani banaan baxay marka qowmiyadaha guud ahaan ku nool muxuu ahaayey Ethiopia meeshay tahay iyo meeshay haysataba cadaadis yani muxuu ahaayey ku qabteen ay muxuu ahaayey kula kaceen taliskii markaa jiray axmaq ahaa ummadiisa muxuu ahaayey dhigooda aad daadiyay caburiyay ayaa muxuu ahaayey isbedelkaas oo isbahaystay ayaa soo dadajiyay inuu muxuu ahaayey guud ahaan Ethiopia ku yimaado gaar ahaan muxuu ahaayey dhulka ay haysato ee Soomaalida soo gaadho waa gartay taariikh ahaan maxaad kala socotaa xuquuqul insaanka marar badan aad ka hadashay waxaan dhihi karaa waa wariyaasha intooda badan kama aysan hadlin oo aniga xataa aan ku jiro kama aan hadlin laakiin waxaa dusha laga saaray rejiimkii hore ee Cabdi Maxamed Cumar in isaga iyo dad kale oo waddanka xilliga haystay ay geysteen dhibaatooyin aad u fara badan u geysteen dadka Soomaaliyeed isku meel ay ka soo jeedaan oo Soomaaliyeed isku yihiin isku jifa iyo isku qabiil yihiin in aad loogu dhibaateeyay arrimahaas maxaa kala socotay waqtigee aad ogaatay Cabdimaalik runtii arrimahaas marka aan soo xasuusto Cabdinaasir waxa weeye meel bay si xanuunta runtii khaasatan waxaan la kulmay dadkii ay dhibaatadu muxuu ahaayey ay taabatay dadkii jeelasha ka soo baxay dadkii soo arkay dad la leynayo dumar la kubsanayo rag la dhibaateynayo waxa weeye in badan waxaan maqli jiray yani xitaa waan maqlay jeelkii Abu Ghraib iyo dhibaatadii ka dhacday Iraq jeelkii Guantanamo ee Kuuba ku yaallay Mareykanku lahaa saldhigii dhibaatooyin ka dhacay jeelal badan oo muxuu ahaayey dadka lagu cadaabo caalamka jira laakiin kani wuxuu ahaa kii ugu foosha xumaa ee ugu sumcadda liitay ee aan maqlo abid yani muxuu ahaayey jeelasha ay Soomaalida galbeed muxuu ahaayey ku dhibaateynaysay khaasatan jeel baa ka caan ahaa oo jigjiga ku yaallay jeel Ogaadeen laakiin jeelal badan baa jiray waxa weeye Cabdinaasir waxa weeye arrimahaas sanada ka hor markii ay marka ka dambaysa ay soo gaadhaysay runtii waan xambili kari waayey waxay noqotay inaan muxuu ahaayey ka hadlo waxaan dareemay ummadaasi inay u baahan tahay maanta cod ay u baahan tahay maanta ay u baahan tahay in wax lagu bedeli karo qalinka oo aan aaminsanahay yani marxaladaha qaar in qalinku ka horeeyo muxuu ahaayey qoriga oo ilaa iyo imika aan aaminsanahay oo aan doonayo inaan meelo badan muxuu ahaayey ku bedelo marka waxay noqotay bal dhibaatadan ka jirta halkan in ummadda loo soo bandhigo xajmiga ay leegtahay waxa weeye ummadda halkaa joogtaa may haysan xorriyad saxaafadeed may haysan warbaahineed inay dareenkooda cabiraan xorriyadda hadalka gudaha kumay haysan intooda dabadda joogta waxa la isweydiinaya oo kuwa dabadda jooga ee badan maxay u hadli waayeen qaar badan way hadleen in badan oo ka midana waxa weeye way awoodi kari weydeen inay hadasho waxay u awoodi kari weydeen inay hadasho qofka hadla waxa la dhibaateynayay ehelkiisa oo muxuu ahaayey dhibaateyntaasi may hayn xarig waxay ahayd dil iyo kufsi iyo xarigba iyo wax kastoo qofka lagu cadaabi karo waxa weeye looma kala aaba yeelayn rag iyo dumar waa yeel iyo carruur looma kala yeelayn waxa weeye intaba waa la dhibaateynayay waxa weeye wax ka baxsan muxuu ahaayey oo u baahan sanado badan in laga sheekeeyo oo runtii waxa weeye marka aan la fadhiisto dadka halkaa yani dhibtu ay ku soo martay oo qaar ka mid ah in yaro kooban aan soo bandhignay barnaamijyadooda waxa weeye waa qisas aad u muruga leh yani ayaa meesha soo maray
عبد الملك waxaan rabaa su'aashan oo sii wata xabsiyada Soomaali galbeed saan hadda ku sheegtay dad aad u tiro badan ayaa waqtiga lagu hayay waxaanu ka hadalnay gumaad dil jirdil kufsi iyo waxyaabo kale oo runtii dhaqanka islaamka iyo dhaqanka Soomaalidu ka maaragtay yaad isleedahay gebi ahaan waxa mas'uuliyadeedu ay lahayd ma waxaan leenahay federaalka dawladdii hore ee abay ka horeysay waxa lagu eedayaa oo kaliya Cabdi Maxamed Cumar ayaa lagu eedayaa mise innaga oo dhan kuwoodan ka hadlin kuwa ka aamusay iyo kuwa madaxda ka ah dawladaha deegaanka ee dariska la ah ayaa ka mas'uul ah mise waxaan dhihi karnaa Cabdi Maxamed Cumar keligii ayaa ka mas'uul wax walba oo dhacay runtii arrinkaasi waa su'aashaasi aad ayay u muhiim tahay yaa ka mas'uula dadkan la leynayay la kufsanayay la xidhayay la baabi'inayay loo dhiibay muxuu ahaayay Ethiopia gudaha muxuu ahaayay dhulka iyo Soomaali galbeed yani lagu dhibaateynayay yaa ka mas'uula waxa weeye waa su'aal u baahan jawaabo runtii yani loo helo yani waana caddahay xaqiiqatan waxa weeye dhulkaas Soomaaliyeed horta waxa weeye waa dhul la haysto waxaana loo sameeyay maamul baa loo sameeyay inay iyagu ismaamulaan Ethiopia dhulka gacanta ku haysatay maamuladii Cabdi Ilay ka horeeyay waxa weeye Ethiopia sameeynayay Cabdi Ilay Ethiopia sameeysay nidaamka oo dhan fargelin baa lagu hayay waxa weeye mas'uuliyadda koobaad horta marka ugu horeysa waxa yeelanaya muxuu ahaayay taliski Ethiopia ayaa yeelanaya ka aamusayay ee ummadan muxuu ahaayay hoos imanaysay awoodi karay inuu joojiyo ayaa mas'uuliyadda koobaad yeelanaya Tigreegi muxuu ahaayay dhowr iyo 20 sano soo xukumayay taliskoodii awoodda gacanta ku hayay inta kale waxay ahaayeen dad la shaqeeyo oo la khasbeeyay kuwaasa kow ka yeelanaya kuwa waa in la xisaabtamo mas'uuliyadda labaad waxa yeelanaya Soomaalidii loo dhiibay halka loo dhiibay ayaa yeelanaya sanadii ugu dambeeyay oo ugu xumaa wuxuu ahaa Cabdi Ilay ugu xumaa cid ka xumaydna yani muxuu taariikhda may soo marin yani dhulka may soo marin Cabdi Ilay iyo taliskiisii yani madaxdii sarsare ayaa yeelanaysa sababtoo ah arrimo badan oo aan lagu khasbayn ayaa jiray oo isagu doonayay inuu muxuu ahaa cumri dheer kursiga muxuu ahaa ku sii dheeraado oo cumri dheer ka sii helo oo uu ku raali geliyo muxuu ahaa Tigreega talada gacanta ku haya in badan wuxuu ku raali gelinayay inay ka raali noqdaan ayuu dadkiisa u dhibaateynay uu dadkiisa u leynay uu dadkiisa u cadaabay marka waxa weeye madaxdii sarsare ee muxuu ahaa dhulka loo yaqaan dawlad deegaanka ogaadeynaya Soomaali galbeed sami maashayta magaca doontidu bixi madaxdii loo dhiibay Ethiopia u dhiibtay ayaa muxuu ahaa mas'uuliyadda labaad yeelanaya wana mas'uuliyad runtii yani culus oo runtii inaku indhaheenu waxa ay qabanayaan hadaynu Soomaalinahay Soomaaliga dhibaateynaya qabanayaan Soomaaliga dhibaateynaya ay qabanayaan marka waxa weeye dadkaas muxuu ahaa mas'uuliyadda leh waxa kale muxuu ahaa runtii mas'uuliyad akhlaaqiya yeelanaya waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ee kale muxuu ahaa daawanaysay muxuu ahaa arrinka muxuu ahaa ka falcelin weeday iyaguna mas'uuliyad akhlaaqiya yeelanayaan oo waxa weeye inay u hadlaan ayay ahayd inay muxuu ahaa ka hadlaan bay ahayd inay muxuu ahaa sida ay uga hadlaan goboladooda iyo dhulkooda ay uga hadlaan oo ay dhibaatada ka jirta ee aan weynaynba yani waxa weeye ay uga hadlaan ayay ahayd dhulkeena muxuu ahaa Soomaali galbeed inay ka hadlaan warbaahinta Soomaalida iyo madaxda Soomaalida iyo culimada Soomaalida iyo Cabdi Malik waanu imaanaynaa warbaahinta way soo socotaa ka hor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo madaxweynihii hore Cabdi Maxamed Cumar wuxuu yiri anigu amar baan ku shaqaynayay ninkan la yiraahdo Gajow Asefe oo iminka fakat ah oo Interpol laga raadinayo oo Tigray aha oo wuxuu haysay Nisa ciidamada nabad sugidda Ethiopia ayaa amarka isiyay dadkan inaan san loo tacaalo marka arintaas isagu miska leexin karo ma oran karaan in Tigray bay u amray dadka Soomaaliyeed inaan xasuuqo aan u dhibaateeyo ma la dhihi karaa arinta waa hafashadii markii uu sii hafanayay uu sii dhimanayay Fircoon oo kale ee uu ashahaatay ayay ahayd oo wax uu ku cudur daarto ayuu raadinayay Cabdi Maxamed Cumar ama Cabdi Ilay waxa weeye xilli aanay qoomamadu anfacayn ayuu yiri waxa ka dambeeyay yani muxuu ahaayay ninkii sirdoonka Gatashu Safa hadii aan magaca saxayo ayaa muxuu ahaayay ka dambeeyay buu yiri marka waxa weeye waa eedka carab waa markii uu doonayay nafay aan badbaado uu doonayay inuu badbaado sababtoo uu dareemayay in muxuu ahaayay cara Soomaaliyeed ay ku soo socoto in ay systemka isbedelay ay dalbanayaan dadkii muxuu ahaayay xataa isbedelka keenay ama dadkii guuleystay inay dalbanayaan
dadkii muxuu ahaa dhibaatada ku sameynayay ummadda halkaa degan in lala xisaabtamo sida awgeed eedka carar ayay ahayd laakiin waxa weeye hadalkiisaasi yani isagay agtaalla waxaan filayaa cabdimaalik weli waana la joogaa laakiin baalkii baa ku dhegay caawa waxa qaldan ilaa iyo 1500 qofood ayaa daawanaysa waana ka cudur daaranaya cabdimaalik saa la socotaan waxaan weydiiyey in madaxweynihii hore cabdi maxamed cumar uu maaragtay eedda uu saaray gajawe asef niisada oo Ethiopia national security cabdimaalik wuu soo laabanayaa waan sugaynaa kama baxayna markaan waxaan isku dayaynaa inaan cabdimaalik aan soo celino marka waana ka cudur daaranaynaa runtii xogaa Soomaaliya ayuu ku sugan yahay meesha ayaa internetkeedu uu aad u xun yahay marka cabdimaalik ayaanu mar kale waxaanu ka codsanaynaa in uu noo soo laabto insha Allah waa waraysi runtii aad u xiiso badan maana ka baxayna marka shakhsigaas ayuu cabdi maxamed cumar uu eed dusha ka saaray gajawe asefa oo yiri isaga ayaa igu amray oo yiri dadka Soomaalida ee jeel ogaadeen iyo jeelasha kale ee wadanka ku jira waa in aad sidaad ula dhaqantaa marka uu noo soo laabanaya cabdimaalik aad ayuu mahadsan yahay internetka ayaa ka yaro xumaa cabdimaalik soo laabasho wanaagsan marka su'aashii kale aan ku xijinayaa waad maqashaan oo marinayso Soomaa si fiican assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdimaaligow dad badan oo taageera madaxweynihii hore ee Soomaali galbeed cabdi maxamed cumar ayaa waxay ku doodayaan iminka ay leeyihiin wadankii ayuu dhisay nabad ayuu keenay in la xiro ma ahayn waa qalad ha la soo daayo dadkaas dadkii dadkooda la gumaaday iyo adiga maxaad ugu jawaabi lahayd caawa dadka mar baan dhageysan lahaa maanta si fiican baan u dhageysan lahaa haddii ay ka hadli lahaayeen markii cabdi maxamuud cumar iyo taliskiisu ay dadka muxuu ahaayey leynayeen kufsanayeen xidhayeen dadkaasi hadday markaa hadli lahaayeen maanta waxa weeye waan garab istaagi lahaa waxa weeye waan la hadli lahaa hadalkoodaasi waxa weeye waa xaq looga jeedo baatil maanta inay muxuu ahaayey kusoo gabadaan soomaalinimo iyo muxuu ahaayey orama halkan taagan oo orama sidan samaynaysa waxa weeye waxay ahaayeen dadkaasi inay u hadlaan ayay ahayd maanta waxa weeye yani cid u heelisa muu samaysan cabdi maxamuud cumar cid u heelisa maanta muu samaysan maanta Soomaali oo dhan way u heelin lahayd laakiin isaga ayaa dadkii aamusiyey caburiyey yani baqdin galiyey isnacsiiyey marka waxa weeye maanta muxuu ahaayey maanta in la yiraahdo waxa weeye cabdi maxamuud cumar baa sidan ahaa may ahayn xaqiiqatan kolley Soomaali kasta oo xitaa anigu aan ka mid ahay yani ma jeclaysanayo cid kale oo aan Soomaali ahayn in ninkaasi gacanta ku qabato ay xukunto runtii ima farxad gelinayso in muxuu ahaayey ay muxuu ahaayey ummado kale oo aan Soomaali ahayn intay muxuu ahaayey qabtaan oo ay kaligii qabtaan iyadoo aan la qaban dadkii jariimadaha ka waaweyn ee isaga ka sareeyay aan la qaban yani kaligii muxuu ahaayey la sawiro oo la yiraahdo xabad u haystay oo la yiraahdo waxaan u sameeyay halkan u sameeyay yani farxad gelinayso inkastoo aanay taasi farxad gelinayn haddana cabdinaasir waxa weeye qaabkii uu dadka ku samayn jiray oo aan biyo ismarin ayaa ku dhacaya sidii uu dadka u hafri jiray oo beenta uga samayn jiray ayuu muxuu ahaayey ayaa qoriyo beena lagu soo sawiray oo aan waxba kama jiraan ahayd oo yani muxuu ahaayey la sawiray sidii dadka u sawiri jiray oo dadka yani sumcadda uga dili jiray ayaa maanta ku dhacaysa waxa weeye waxa soo hadashay muuqaal yani runtii aanan weli faafin bishaaro wacdi oo Mareykan ka soo hadashay bishaaro waxay ahayd dad waan la hadlay Mareykan bay joogtaa si gaar ah la hadlay barnaamijyadeedan hore ayaan u baahiyay marka bishaaro waxay ku leedahay markii ay aragtay qabashadiisii waa sidii uu aniga ii qabtay Hargeysa laga qabtay inta walaasha Hargeysa laga qabtay waa qaabkii la qabtay baa loo qabtay marka cabdi iyo intii la shaqeynaysay sidii ay dadka u dhibaateynayeen ayay muxuu ahaayey ayay u gaadhay waxaan iyaduna xusid mudan oo aan la ilaawin wixii uu qabtay waajib saaran buu ahaa waxa weeye shaqaaluha uu shaqeynayay ummaddu u shaqeynayay ninka xilka soo doontay waa nin ummadda u shaqeynayay marka laami la dhisay iyo waddo la dhisay waxa weeye waa shaqadoodii ay qabteen iyagana xilalkan soo doontay waxa weeye wax muxuu ahaayey laakiin lagu ilaawi karo dadkii ay laayeen wax la isbarbar dhigi karaa maaha waa gartay aad ayaad u mahadsantahay ma ahan keliya deegaanka Soomaali galbeed keliya ma ahan waxa dhacday mudug dad badan oo Soomaali ah oo Soomaaliya federaalka degan
in dhibaato loo geystay qof kastoo Soomaali aan ay taabatay aniga Cabdinaasir kula hadlaya shakhsi qoyskayga ah ayaa muddo 4 sano wuxuu ku xirnaa jeel ogaadan uu ku xirnaa gabadhii uu qabay oo walaashay gabadhiga yar uu qabayna 3 jeer bay ilmo maaragtay ay ka soo dhaceen oo maaragtay naxdintii ay ku jirtay oo kale iyo waxa kale oo jira marar badan adiga waa la socotaa waan ogeyd sheekadu anigu shakhsiyan kama aanan hadlin waan la weydiiyay waxa la yiri Soomaali galbeed maxaad uga hadli weysay oo live baad uga soo hadli weysay waxa jirana kullay adaan kuu sheegay oo maba rabin inaan meelahan aan soo dhigo laakiin sababta xilligaas Cabdimaalik ay uga hadli waayeen dawladda federaalka markii la yimid waxaan aragnay kuwa badan kuwa hadda jooga iyo kuwii ka horreeyay waxaan aragnay u buraanburayo oo ugu tagay jigjigo lagu soo dhaweynayo sababtay ku dhici weysay xataa markii la soo galay dhankii federaalka oo loo oran waayay condemnation ama ma aragtay lagu mucaarado la yiraahdo yeeli mayno dadka mudug ku nool ee la dhibaateeyay maxay dawladdan federaalka tii hore iyo tan hadda jirtay uga aamusanaysaa soo gelitaankooda ay soo galayeen Soomaa mudug markay soo galeen dadka ku laayeen runtii waxa weeye waxyaabaha muxuu ahaayay waxyaabaha wasmat caar sumadda ceebta muxuu ahaayay wajiyada ku hadhay madaxda Soomaalida ayay ka mid tahay waxa weeye Ethiopia يعني وحوي اسكده حق حدود بيانات كاين سو دافتي gudaha ayay soo gashay waynu ogeyn muqdisho say u soo gashay ay dadka muxuu ahaayay ay u xasuuqaysay u baabiinaysay haddana muxuu ahaayay iyadoo aan la kala xaalin oo aan laga heshiin haddana mar kastaba laabta lagu soo dhaweynayo waxyaabaha muxuu ahaayay runtii inay dawladda badan aanay samayn ayay tahay marka waxa weeye ma yahayn mudug qura ma yahayn oo ay kamid ahayd oo dad bay ku laayeen dadka deegaankaas way laayeen labada dhinac xaggan degaba xuduud beenaad ka dhaafsan iyo gudaha muxuu ahaayay Soomaaliya way laayeen saasaanay u soo galaan dhulka Soomaaliyeed oo dhan waxa weeye Cabdinaasir waxa weeye taliskii hore Ethiopia si aan caadi ahayn oo adoonsiya ayaa loola shaqeyn jiray jaraa'imkana waxa weeye waa lagala qayb qaatay way soo gali jireen siday doonaan bay yeeli jireen mas'uuliyadana waxa qaadanaya oo ay dhakada ka saarayna madaxdii xilliga haysay ayaa muxuu ahaayay mas'uuliyadooda qaadanaya qof kasta oo lagu dhibaateeyay oo halka lagu dilay oo lagu baabiyay waxa weeye iyaga qaadanaya waxaynu ognahay waxa weeye waad xasuusataa Cabdinaasir oo saaran soo qaadanaya diyaaradii Ruushka ee hawada ku soo khaldantay in yar soo gashay waati la soo riday oo Turkiga waa kii soo riday wacni hawo ayaa saa loo galay bal adigu qiyaas tobanaan يعني بقولار Soomaaliya oo inta dhulkii la soo galay xuduudii la soo galay oo xitaa hadii aan dawladdu awood lahayn aan la cambaarayn iska daa taas waxa weeye inuu ogeyn dadkii bariira lagu xasuuqayay muxuu ahaayay beeratada ahaa kibirka muxuu ahaayay loo leynayay diyaaradaha Mareykanku ay duqeynayeen taana muxuu ahaayay sidii ay ahayd loogama hadal lama kululayn dadkiiba waxa lagu sheegayaa argagixisay ahaayeen iyo dad bay sidan ahaayeen marka qofka la doonayo in la xalaaleeyo dhiigiisa waxa weeye isagiiba muxuu ahaayay dambiga dhakada laga saaraya marka waxa weeye way ceebaysan yihiin madaxdii Soomaalida ahayd ee kala duwaneyd muxuu ahaayay ka mas'uulka ahayd xilliyada la soo galay waxaanan ugu baaqaynaa oo aanu kula talinayn inta imika joogta inay isbedelaan oo dareenka shacabka ku shaqeeyaan yaanay ku shaqeyn dareenka dawladda jaarka waa gartay Cabdimaalik maamaha Soomaaliya ayaa jirta kulli aday saxayo oo hadda Soomaaliya joogay waranka qofka kugu dhufta iyo kan kugu gilgila ka daran baa la yiri kasakowrijiinka markaas jiray dhibaatooyinka waddanka ku hayay waxa u fududeeyay ama enabler ayaa la yiraahdaa luqadda Ingiriiska u sameeyay warbaahinta maanta warbaahinta waa taqaanayo waxay ka hadlaan meeshay gaaraan qof walba dhageysta ama TV ama radio ama qof caana hadduu hadlo marka warbaahin baa waddanka qandaraasyo lagu siiyay in ay caburiyaan wax walba oo xasuuqa dadka reer Soomaaliya lagu sameeyay marka dadkaas maxay kaga duwan yihiin baa isleedahay ninkii waranka kugu dhuftay iyo kan kugu gelgelay Cabdinaasir waxa weeye qofka la dilayo ka fuliyay dilka sameeyay ma aha qura ka wax dilay ka soo qabtay waxa weeye waa dilaa ka arkayay ee qariyayna waxa weeye waa dilaa
كأودي كري إن وحكة قبته أو هذا الآن وحكة قبته يسقون وادي له وحوي تواطؤ وحلا يراهضه أيات شري أو هاي الشرقال أو أي هشيس لهاين أو أي سيخو وذا السعودين أو جرائم كله وذا قرنية بكرة وحوي غطاء غرينا وحاس نقطي وربعين الصومالي ده ولا هذيك سدي أو وحوي جرائم كي كقيب قاتين وحي هاي ماشي قرع أي هاي إن أمضن دباتدو ده وهالجنتو أو أي دباتدو لجوها يو أي شيكتو حتى وحكى قيب قاتي ورباهين صوماليات وعالمية أو لكن أفكار صومالية كوها بس وحسينا ومحوها هي يلي منه عدنا قرن منه وحوي مركا ورباهين الصومالية رنتي دور كذي أها إني حقيقة أنا وحكى لك كمان ربين أما ضدك ديجان كاسي وحكى لك كمان ربين إني باطل وشاجان أما حق ضر الله شاجو مدوني وحيدونيين إني الله شاجو يعني الرأي وراخر وربل إثيوبيا ذن عدة أوشق يسوى أركتيده ده وتوجد بسانه ضدك اللي باطين ضدك ديجان كاس ورهدو ده شعب كوده عدة دونان بها نقول يعني هلا سيو الرأي الآخر أركتيده كله intaas may samayn waxay soo gudbinayeen ra'yi qura maanta oo dhan waxay nooga sheekeynayeen muha ceelbiyood bay nooga sheekeynayeen warbaahinta Soomaalidu waxay nooga sheekeynayeen markay booqdaan waxay nooga sheekeynayeen maqaaxida inanka iyo inanta maqaaxiba jigjiga ku taala iyadoo yani 2 mitir oo halkana yani mitiro yani koobana jeelogaadeen uu jigjiga muxuu ku yaalo dhexdeeda oo lagu kufsanayo dumarkii oo raggii lagu leynayo 10 sanadood ay ku jiraan kibir lagu xirayo waxaan macquul ahayn lagu xirayo easy oo sahlan iyo been abuurba marka waxa waxay noo soo gudbinayeen xaaladdu way fiican tahay xaaladdu way wanaagsan tahay xaaladdu waa bashbashi barwaaqo xaaladdu waxa waa okay waxa jaraa'imkii ugu dambeeyaan xasuusta waxa kamid ah waxa beenta ay warbaahintu kala qayb qaadatay oo ay tahay ilaa iyo imika aanay waxba ka bedelin oo ay tahay in raali gelin ka bixiso warbaahin Soomaaliyeed ayaa waxay aragtidii sheegay uu yiri 1500 ayaanu sii daynay waliba muxuu ahaa online weeyabu ay dadka lagu tilmaamay 1500 online faanu sii daynay ayuu yiri waa bilowgan 2018 waxa dadkii waa la sawiray warbaahinta sawirada bay soo gudbisay Cabdi Ilay baa sii daayay Ethiopia sii daysay dadkii waxa xaqiiq noqday oo muxuu codad badani ay soo tareen in dadkaasi ay yihiin dad lagu hayo ban la yiraahdo banka bayaxow iyo meelo kala duwan lagu sii hayo lagu sii adoonsanayo oo aan xorriyadoodii dhameystirin waxa laga rabay warbaahintu warka hore haday yeeshay inay warka dambe saxdo wax kale kamaan rabin inay tiraahdo warkaas ka dambeeyay oo yani waxa nimankii waa la haya may oran in badan baanu hadalay waxaan xasuustaa gudoomiyaha ayuha waa la wareystay waan baahiyay wareysigiisaas gudoomiyaha jabhadda ONLF waxa uu ku hadlay admiraalku uu ku hadlay wuxuu sheegay in dadka aan la sii dayn aan u bagaranayo yani madaxda ugu sareeyay ee Soomaalida ayuu kamid ahaa halkaas muxuu ahaayay ka halgamay ayuu kamid ahaa codkiisa in la tixgeliyahay oo la baahiyo laakiin maxaa lagu baahiyay dadkii baray warbaahinta bulshada ayaa codkiisa muxuu ahaa baahinayay laakiin kuwii yani Cabdi Ilay kala shaqeeyay in beenta iyo dacaayadaas lala faafiyo may baahin marka waa jaraa'imka ay sameeyeen ba kamid ah waxa kale muxuu ahaa kamid ah way badan yihiin waxa يعني waxa u baahan yahay bal mar kale inaynu muxuu faafaahin ka bixino waxa kale runtii aynu muxuu xusaynaa telefishinka Universal iyo BBC-da labadaas si gaar ah u xusayna waxa BBC-duna way tagi jireen halkaas wariyaal BBC-da tagi jiray jaraa'imka halka ka dhacay iyo dhibaatada ka dhacay noomay soo gudbin jiray waxa Cabdi Ilay wuxuu doonayay inoo soo gudbin jiray waan cambaaraynayna runtii falka waanu ka daba teegarna waanu dacweynayna wixii ay kala qayb galeen mid qura maaha maxamed anni raali gelin bay BBC-du ka bixisay isagoo la khasbayo oo aan xorriyad haysan ayay wareysatay yani waxa in kastoo ay raali gelin jilcisan bixisay laakiin waxa naftiisa muxuu ahaa waxa halis ayay gelisay waxay kaloo ay muxuu ahaa Universal TV iyo telefishinna kale ba waanu Universal ban xasuusta telefishinada ugu horeeyay ayuu kamid ahaa halka joogay Cabdi Ilay sidoo doonayay soo gudbinay ummad Soomaaliyeed ayuu telefishinkaas lahaa waxa waan ku hadla magaciisa ummadda Soomaaliyeed ayay ahayd inuu noo soo gudbiyo Cabdi Ilay ma diidayno inuu u soo gudbiyo dhaantadiisa iyo shirarkiisa iyo wuxuu doonayay Cabdi Ilay inuu soo gudbiyo waa aragtida kale inay dadkan dhibaatadooda soo gudbiyaan bay
هذه كلا دول مين نقاش هذه مالك لا توجد بس وجريمة وحوي مساواة ما شرته وين محمها مساواة شرته وين محمها شربتي يا كرامتي وربعين تقول هاي أي مالك كده عين وحين نقدين تلفزيون قعدت لقوها يو وحكلوت شرا ورر إن محمها قعن صار وضل الهاين وحشرا وضل الشقين الرماها عدين تودنا وحوي والله صوب بندق دونا يعني أنت أي كقيب قاتين يونيفرسال تي في بي بي سي دوبا سيدا قيب قاتين يوحي سمايين وحوي ونصوب بندقينا ما دام إنه هاي محمها ضدك يعني محمها الدفاعات ضدك حقوق ده هالك تشوجا يصومالي ده بجودان بقى وحوي أنا جا محمها غير كيو ونصوب بندقينا ورباهنتي محمها هاي إن كقيب قاتين محمها جرائمك إن تلفزيون كهون كيبل أو رياض وسجنا runtii mar buu telefishinkaasi ka hadlay waxay ahayd dhacdadii maxaa jaamac dubad ayuu ka hadlay telefishinkaasi waan xasuustaa waxa weeye warbixin aad u qiimo badan buu ka diyaariyay jaraa'imka dhacay telefishinkaasi hawada laga saaray Cabdinaasir isaga iyo telefishinka mar dambana waa laga saaray RTN waa telefishinada isaguna halka ka hadlay waxa weeye hawada laga saaray waxaana ka saaray systemkaas ka saaray rag maanta jooga oo madaxoodu sareeyaan baa ka qayb qaatay oo jooga maxay Ethiopia jooga iyo dhulka Soomaaliyeed ba jooga ayaa maxay ka saaray telefishinkaasi wuu dadaalay oo telefishinadii kale maxay hawada laga saaray kadibna telefishinkii wuu sururiyay laakiin telefishinadu kuma dhiiran guud ahaan inay xaqiiqada noo soo gudbiyaan oo waxa weeye waxay ka door bideen inuu qof kastaaba is hoos dhigo oo uu yiraahdo maxay waxa weeye anigu waxaan soo gudbinayaa niyo waxa doonaysid baan maxay soo gudbinayaa marka waxaan doonaynaa insha Allah dhammaan warbaahintii la shaqeynaysa Cabdiilay ee Soomaalida ahayd dambiga ay ka gashay halka ka gashay waxa weeye waan soo bandhigaynaa waxay la mid yihiin warbaahin kasta oo kala shaqeysay Cabdiilay la shaqeysay waxay la mid yihiin dilkii uu Cabdiilay geysanayay inay geysteen kufsigii Cabdiilay iyo systemkiisu nidaamkiisu taliskiisu ay geysanayeen inay geysteen caburintii inay ka qayb qaateen waxa weeye waxaas oo dhan ka qayb qaateen maadaama ay joogeen khaasatan anagu telefishin kasta oo jooga waxa weeye oo halka joogay waxa weeye inuu noo soo gudbiyay ama waa inaanu noo joogin ayay ahayd sababtoo waxa weeye dawna khaldaya maalin kasta haduu ceel beena noo soo sawiro oo biyo yani muxuu ahaay biyo la sameeyay wada la sameeyay magaalo hebel reerba waxa loo qaybiyay haduu noo soo sawiro waxaan u maleynaynaa inay adduunyadu ay meeshaasi khayr tahay oo dad badani way rumaysan waayeen Cabdinaasir markii laga sheekeeyay jeel ogaadeen dhibaatadii ka dhacaysay waxa weeye way rumaysan waayeen waxa weeye imikana dadkii runtii jaraa'imka sameeyay ee ka qayb qaatay foolxumada ka qayb qaatay warbaahintii ka qayb qaadatay oo aan bayaan rasmiya iyo warbixin rasmiya ka soo saarayno waxa weeye ceeb bay ku tahay maanta inay inoo soo gudbiyaan wixii ay mamnuucayeen dad aanay codkooda aanay soo gudbin jirin bay maanta soo gudbinayaan dad aanay u hadli jirin bay u hadlayaan maxay anfacaysaa waxa weeye qof dhintay oo dawow sidid maxay anfacaysaa Cabdinaasir ma anfacayso imika ma soconayso waxa weeye cid la khaldaya ma jiraan maalintan u baana waxa weeye ayaan doonayna diyaadashid marka qof kasta oo dhulka maxay cid kasta oo hadashay waxa weeye dadka halkaasi waxay leeyihiin beerka ka ogsooni beerkay ka ogyihiin dadkii maxay garab istaagay okay waa ma santahay su'aal muhiim ah oo isla socota labay noqonaysaa Soomaalidu diinta islaamka intaan imaanin Soomaali bay ahaayeen oo dhaqan bay lahaayeen diinta ka hor dhaqankiina diinta kadibna uu sii socday waxyaabaha ugu yaabka badan Cabdimaal Larko wuxuu ahaa in mayd la soo dhigo banaanka la sawiro lagu candhuufo jidka dhulka lagu jiido dhibaato lagu sameeyo ilaa aan aragnay xataa dadkii ugu dambeeyay oo hadda madaxweynaha ka noqday in lagu soo sawiro marka dhaqanka dadkii arkay dad Soomaali ah isku dhiig ah isku diin ah walaalahooda sida ula dhaqmay oo hadda aan ku aragno social media qaasatan Facebook hero Cabdi Maxamed Umar hala soo daayo orama uu xiran yahay la leeyahay dadkaas maxaad ku dhiilay dhaqankaasna muxuu ahaa maydka ilaa hadaan ku dilo wax kale aan kugu sameyn lahaa adduunka ma jirto dilis waa meesha ugu dambaysa maydka la fadeexeeyo iyo hero-gan hadda soo baxay social media-ha bal waxay nooga sheeg waxa weeye waxyaabaha runtii argagaxa leh ama kaagale bay kamid ahayd yani ay ku yartahay inay caalamka imika ka dhacdo in inta qof la dilo oo xaq darro lagu dilo oo xataa xaqa lagu dilo
inkastoo aan xaq ay cid ku dileen aanay jirinba oo la isku sawiro way dhacday waxay ka dhacday Soomaali baa samaysay Ethiopian sameeyay ma jiro waxyaabaha cajiibka qof Ethiopia qoomeedaha Ethiopia kale Cabdinaasir cid falkaa samaysay oo aan arkay oo isku sawirtay meed ma jiro waxaan hayaa dadkii Soomaalida ee talada gacanta ku hayay Soomaali galbeed ee jigjiga yani taliski Cabdiile ayay hayeen dadkii muxuu ahaayay isku sawirayay Sheikh Deeq ilaahay muxuu ahaayay ha ka aqbalo shahaadada ha ka aqbalo iyo walaalkii kale oo aan magaciisa muxuu ahaayay liqsanahay oo aan xasuusnaa muxuu ahaayay isaguna muxuu ahaayay shahiiday inta isku sawireen ayay soo bandhigeen waa waxyaabaha foosha xumaa ee argagaxa lahaa ee ka dhacay deegaankaas ay yahay dadkii way nool maanta way joogaan waxyaabaha muxuu ahaayay la akhlaaqiga ah ee wali yani muxuu ahaayay maalin la weyto waxay ka mid ahaayeen dadkaasi mid la yiraahdo ayaa ka mid ah Khadar Dheere Khadar Cabdi Ismaaciil oo reer dhagax buura oo la xidid ahaa Cabdi Maxamed Cumar wuxuu ka mid ahaa barlamaankii maalintii dhaweyta soo fadhiyay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar ansixinayay ka hadlayay meesha ayuu ahaa golihii barlamaanka ka hadlayay lahaa maxaa degmooyinkii 99 kaanu magacawnay waanu ku qaldanay imikaanu saxaynaa kaasoo kale inuu soo fadhiisto maaha maanta waxa weeye sawirkiisa waa la hayaa isagoo meedkiisa u tilmaamaya oo istihzaa ku leeleelay yani waxa weeye dadka noocaas oo kala in dadka wajigooda laga qariyo way dadka noocaas oo kala iyo dadkii taageeraya taliskaas maanta waxa weeye baraha bulshada ka dhageysan meena Cabdi anigu kama dhageysto waxa weeye sababtoo ah waxa weeye dulmigii bay ka qayb galeen waxaan dadka dhageysan lahaa Cabdinaasir oo hadalkayga waaniga bilaabay haday dadkaasi ay hore dulmiga uga hadlaayeen maanta waxa weeye garab ayaan siin lahaa waxa weeye jaraa'im bay ka qayb qaateen dadkaasi waxa weeye libaxay noqon maayaan de qof kastaaba muxuu ahaayay waxa weeye haduu iska hadlo iska hadalkiisaasi muxuu ahaayay wax ku noqon maayo dadkaasna cadaalad ba horta hal maanta waxa weeye hadii dadkii muxuu ahaayay la dhibaateeyay way joogan waxa weeye xaq bay u leeyihiin in ay dalbadaan muxaakamad cid ka hor istaagi kartaa ma jirto wax la yiraahdo muxuu ahaayay qof baa laga hor istaagi karaa qof muxuu ahaayay aabihi la dilay walaalkii la dilay xaaskiisa la dilay inuu maxkamad furto xaq buu leeyahay cid laga hor istaagi kara ma jiro si kasta hadii loogu baaqo hal la iscafiyo ee hal la isaamaxo oo waliba iscafis been oo aan waxba ka jirin sababtoo ah hal la iscafiyo Cabdi Maxamed Cumar baa la iska deyn lahayo oo kuwii kalena muxuu ahaayay waxa weeye sidii kuwii kale loo daayay tikreegi loo daayay iyo qoomeedii kaleba يعني عفس كاسا أيان محوها دبهين عفس كاس وحوها ما أنت عبد محمد عمر بين لسه دايه هدي عفس وجرو جودهان بهدي اللي هذا وروح يدع عد بيان ليسوا راعي مركا وحوي جرائم بعد عيب أنا رنكرا جرائم بعد عيب يعني محوها تصور روح وكم بدها عبد ناصر وحيابه وقف وش حماء إنه أرجنو إن كاستو كقرار بدأ يقف كمركا للدلو لكن مركا لا يسكت يصوره وحي سميني سدرين وحي كوس سميني ضدك أهل كهابة محوها عادوا سيدهم غيسا أديات madaxweynihii hore waa la soo xiray weli si banaanka ah oo public ayaa loo soo xiray xabsi ayaa la geeyay awoodii waa laga qaaday kadib 10 maalmood markuu xirnaa wuxuu sheegtay in cunto xumo iyo jiif xumo ay ku dhacday ninka ilaahay baa awood leh sida u awood weynaa oo maanta sida gaaray ma ku cibri qaadan doonaan dadkan mandiqada ku nool ee dadka caburiya har iyo habeen inay ku cibri qaataan ayaan ugu baaqnay inay ku cibri qaataanna way tahay waxa weeye duruus baa runtii ku sugan Cabdi Ilay iyo Ethiopia guud ahaanba waxa ka dhacay mantiqadan geeska Afrika iyo caalamkaba dictator kasta oo heer gaadha sidoo u jabo waxa weeye lama rumaysanin dadkan oromada ah ee kacdoonka sameeyay 3 sano ugu dambeysay sanado badan meesha waa lagu adoonsanay waxa weeye waxa loo arkay dad dhulka iyo iyagu ay isku mid yihiin oo la leeyahay oo adooma oo shaqeeya muxuu ahaayay yani amxaarada iyo tikreega iyo madaha kale u shaqeeya maanta waxa weeye iyaga sareeya Soomaalidiina maanta waa kuwaas oo intii talileysay way hooseysaa waxyaabaha cajiibka ay tahay in lagu cibro qaadasho in ka hadlaynaa maanta waxa weeye waxa madax ugu sareeyay dhulkii Soomaali galbeed Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar Mustafa wuxuu ka mid ahaa dadkii la dhibaateeyay ee ugu cararay dhulkiisa
يعني عبرتها تلسكا سوماليدا أي كوهيين يعني محوها هاي إسقى أهل كيس يضدك ديجان كابا وكم إذا dadkii la dhibaateeyay dhibtu sida tooska u soo gaadhay ilaahay ha u naxariistee shahaadadan ha ka aqbalay walaalkii Faysal Cagjar waxa weeye waxa lagu dilay dhawaanba 2016 ayaa la dilay waxaana dilay systemkan taliskan cabdi ilaahay ayaa dilay dad yow kala duwan hal la adeegsado laakiin taliska ayaa dilay gaari baana laga tuuray si xun baa loo dilay jaraa'imkii ay ku sameeyeen oo waxa weeye aad bay u fool xumaayeen dadkii ninkaas isaga ah ee madaxweynaha imika ah inta walaalkii la dilay ayaa dad Turkiya oo reer dhagax buura طبعا dhagax buur buu ka soo jeedaa muxuu ahaayay madaxweynuhu oo reer dhagax buura la soo istaajiyay oo waliba la yiri muxuu ahaayay adaa u sababa dhimashada walaalka dad la cadaadinayo qaarna calooshooda u shaqaystayaal bay ahaayeen laakiin qaar badan oo la cadaadinayo jira oo la leeyahay hadla oo waxa weeye ninkii inta waliba isagii baa khaldan baa la leeyahay adaa khaldan oo in badan baa lagu soo hadlay sidaasana sameeyay adaa sabab bimaana waxa weeye waxay qirayaan in ninkan loo dilay isaga loo dilay yani way qirayaan ismanooga way qirayaan marka waxa weeye hadaan u soo noqdo ninkii saas ahaa muxuu ahaa walaalkii la dilay aabihiina la dhibaateynayay dadkiisa ayaa maanta madaxweynaha waxa kale la socda dad badan oo aan tirin karayn oo iyaguna dhibta soo maray oo dalka in badan ka maqnaa أنا لفهم نقطة ضدك دول مديد كوشلا نقطة سراج كوشلا نقطة شعب كعادي نقطة ضد كاسي وحوي ضد تلسكو دباتي أو ضدك كم غنا أو صولاتي أو مانتا أو لقى عايشري ورباهيته هذه هبين لقى عايشري بمانتا بما إلهي سريسي ما مولد الصومالي ده مدح الصومالي ده وحوي مقدان إني كعبرة قادنيا خاصة وحي صمينيا ولي حرقي بودان عبرنتي بودان عبرنتاس iyo xarigaas waxa way Ethiopia oo dhan taliskii ka jiray ayaa dhacay عبرنتاس iyo xarigaas ayuu ku dhacay Soomaalidiina عبرنtii iyo xarigii iyo cagajulayntii dictatoriyad Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed oo madaxa oo dakaat yani muxuu ahaayay kaligood talisa oo muxuu ahaayay luqadda ay ku hadlaan ay tahay luqadda xariga ayaa jooga kuwaas waxaan ugu baaqaynaa waxa weeye ما فوجا إثيوبيا إذا كما فوجا هنا تكون عبرة قادتان وحوي الشعب كنا مالته كعو ما فريسين كرتان سيدا ما هدتك هالك تشوجا لو فريسين وعي وحوي اللغة بدل بيقال لنا لو تدتكو وحوي يعني سيابك لو دوبي واضل كران واقرتي وما سنتهاي وحن ربينا نكويديو وحن اللوي كرن طبعا أرنتا وحي هوستالا أقل بدقح أو رجيم كفدرال هذا كجرة وقعنته أقليي إثيوبيا waxa kale oo jirta oo aan la iloobi karin dad aad u fara badan oo dhulka ka soo jeeda in Puntland iyo Somaliland ay gacanta u galiyeen is regiimkii hadda maaragtay shaqada laga qaaday marka regiimkan cusub ee hadda yimid ee dawladdan cusub ee yimid oo yiri musuqmaasuq iyo cadaaladii wax dhan waa la dagaalanay yiri xiriirka ay la yeelan doonaan federaalka Soomaaliya qaasatan dawladahan ku hareeraysan xuduudaha la sida Puntland iyo Somaliland maxay noqon doonaan waxay oran doonaan waa business as usual shaqadu ha socoto mise waxay xasnaan doonaan dhibaatooyinkii loo geysay dadkii deegaanka u dhashay oo laga soo dhiibay magaalooyinka Somaliland iyo Puntland oo loo yahay iyo qalbi dhagax oo heetii ugu weyneed ee fadeexa oo soo marta maxbuus Soomaali ah taariikhda Soomaaliya arimaas maxay noqon doonaan xiriirkooda marka waa laba dhinac dhinacna waa dhinac muxuu ahaa Ethiopia dhinacna waa dhinac Soomaalida horta Ethiopia waxa weeye yani laba sanadood yani Ethiopia dana qaanay waxa weeye way soo laba kacleynaysaa laba sano saddex sano way isnasaxaysaa waxa laga yaabaa muxuu ahaayay inay ballanqaadyada ay ballanqaado ka baxdo waxa rajaynaynaa inaanay ka bixin laakiin waa lagu yaqaanaayo waa caadadeedo bilowgii sagaashanaadkiiba waa kuwii on lafta kaga baxay waa kuwii dagaalka ku qaaday aynu ogeyn ay ku baxeen on lafta markaas marka xaqii Soomaalida iyo wixii dhacay iyo dhibitaanadii iyo isbedelka dhacay waxa weeye runtii maadaama qodobka xustay Cabdinaasirow waxa weeye Soomaali galbeed waxa araxda ka tooganayay araxda ka jabiyay yani Soomaalida kale in ka badan Ethiopia Soomaalida ka jabisay araxda markaan isbarbar dhigo Ethiopia iyo Soomaalida
soomaalida ayaa soomaali galbeed aragta ka jabisay oo waxaan u badinayaa soomaalida sababtoo ah dadkan soomaali galbeed waa dad muxuu ahaa dhulka xaq u leh inay helaan xaqa ay ka tashiga inay helaan xaq bay u leeyihiin waa xalaal waa mashruuc waa dhul la haysto oo yani macruufa oo aan la dafri karin marka inay helaan xaqa ay ka tashigooda xaq bay u leeyihiin oo ay ku helaan yani halgan hubaysan haddii lagu waayo halgan silmiya haddii laga diido waxa weeye maanta waxay ahayd oo weliba si gaara meeshan waa dhul Soomaali oo dhan ka dhaxeeya oo waxa weeye waxay taagan yihiin dadka Soomaalida halkaasi waxay taagan yihiin dhulkani Soomaaliya waa dhul Soomaaliyeed bay taagan xitaa lagama sheegto dadka Soomaalida kale waa waxyaabo cajiibka ay ka mid tahay sida Muqdisho kale Soomaali laga sheegtaa ma jirto waxa weeye maanta marka maxay ahayd in garab la siiyo ayay ahayd laakiin ilaa 1996 waxa weeye Soomaalida waxa laga soo dhiibayay dadka Soomaali galbeed ee aan ahayn jabhadaha ee shacabka caadiga u badan magaca muxuu ahaayay deegaankaas ayaa lagu soo dhiibay Ethiopia ayaa lagu raali gelinayay qofkii laga shaqeeyay waa la dhiibayay waxa weeye waxa la doonayay la jilciyo la baabiyo aan hooy ka helin meesha oo halgankoodu uu noqdo mid isdhiiba oo ay noqdaan muxuu ahaayay waxa weeye waan isdhiibnay heerkaas la doonayay in la gaarsiiyo marka waxa weeye maalin dhaweyta Cabdinaasirow waxa aan wareystay nin la yiraahdo Cabdilaahi محمد آدم هذا محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم آدم أيام في ليا أو هذا المقعد حليه وكم مقعد ديري هي حليه وحكم بدها ضدك اللي ديبي لقى ديبي وضدك صدق دي وجوه الرئي يقول الصوماليين لقى ديبي سيدا مو هذا يعني مو حجها أنكوهي أو يشتغلوا إنه حقيقي لحية سياسة كيف اللي ديبي نكاس وحلقة ديبي هرجيسة لقى ديبي wuxuu ku jiray xabsiyada wuxuu ku jiray Ethiopia 10 sanadood umri baa ka tagay ninkaas waa lagu dhibaateeyay Australia ku nool yahay imika dhibaatadii markaa bilaamatay intaas oo sanadood ilaa 2016 yani ama ilaa 2017 marnaba muu istaagin in dadka la iibsado marka waxa weeye araxda laga jabinayay dadka muxuu ahaa waa la dhibaateynayay fadeexadna way ka soo raacday يعني آخركي ما أنت محموها إثيوبيا حتى يمك وحتى أنت عد أقبل ما يسوي عد أي قبانيسا ما أنت مجرتو خاصة لو كان سنة دولة قدام بيسنا قياسي مركا وحوي أخطابها كده عادي دنبيات عادي وحوي دتك أي دي بينا دتك أي دي بينا وحوي قف مركا لدي بيو أو إثيوبيا لو دي بيو كو وحوي قف أبندقان إن لدلو إن مددر الحلو إن محموها هذا دمر تايلو قصدو وحاسورنا قيب محموها كهايان وحرتين إن مملكة الصومالية ده oo ay tahay in lagu la xisaabtamo oo runtii anigu aan ku baaqayo cid kasta oo qof soo dhiibay in la xisaabtamo oo aan saal ugu dayn la soo bandhigo magaciisa haddii aan la awoodi karin in la maxkamadeeyo la ceebeeyo jariimada uu sameeyay la ceebeeyo oo la soo bandhigo maalin uu buuxma xaq u dildilaaci doonaana waxaanan kula talin lahaa maamulada Soomaalida inay ka waantoobaan waxa la gaaray xilligii ay dadkan xumahay garab ay siin lahaayeen waa maasantahay waxaan rabaa arintan saliida qayriinka ay aadka looga hadlay oo dhulka Soomaali galbeed laga helay oo federaalku yiraahdeen boqolkiiba 5 ayaa waxa la siinayaa 5% ayaa waxa la siinayaa dhulkii laga helay runtiina dastuurkana waxay ku qoreen in qowmiyadaha kale iyo kilada kale loo kala qaybiyo oromadii awood ay yeelatay empowerment ay shay oo ra'iisul wasaare heleen hadda waxaad arkaysaa in ay yiraahdeen ilaa jigjigan inaga iskale inta badan waxaan ragnaa dadka oromada ee muslimiinta ah dad wanaagsan tabcan way ku jiraan dad xun way ku jiraan dad Soomaali aad u fara badan ayaa la xasuuqay oo Soomaali galbeed xasuuqi wali uu socdaa meedadkooda maalin bal la keenaa marka anagu afkeena dheer dad badan ina daawanayaan laba wax inaan sheegno ayaa muhiim ah caawalkan aan ka sheegno marnaba cidna lagu taageeri maayo hadduu ku nool yahay Oromo Kismaayo ama Hargeysa ama Baydhabo in qof maaragtay Oromo ah aan la dhibaateyn laakiin sharciga federaalka u yaala ama dawladdan hadda awoodda la siiyay Soomaali galbeed ay adeegsadaan oo yiraahdaan in dadkooda ay difaacaan sababtoo cidna yeeli mayso marka in la yiraahdo Oromadii dhulbalaarsi ay sameynayaan wadankiina maaragtay way ku soo duulayaan 5% oo saliidiina maaragtay halkaas laga dhiibaya marka ra'yi ahaan adigu maxay kula tahay 5% ama 5% ah ee la siiyo dhulkii laga helay petroolka iyo dagaalkan u dhaxeeya Oromada iyo Soomaalida iyo Oromada ku nool dhulka Soomaalida ay aan ahayn Soomaali galbeed
maxaad ka dhigi lahayd haddaan muxuu ahay ku bilaabo horta marka hore dhinaca muxuu ahay saliidda mashaakilka marka saliidda waxa u asala yani muxuu ahay waxaanu dib ugu noqonaynaa dhulkan yaale dhulkan waa dhul Soomaaliyeed ma la siiyey yani xorriyadiisa ma la siiyey xaqa ay ka tashiga ma la siiyey maya ingiriisku xaggaas uu ku daray sidii muxuu ahay Ethiopia oo muxuu ahay ka qayb qaatay kala qaybsiga muxuu ahay Afrika la kala qaybsanayay iyada muxuu ahay yani lagu daray waaye dhulkani waxa weeye shidaalkiisa iyo khayraadkiisa Soomaali baa iska leh asal ahaan Soomaali baa iska leh oo iska daa muxuu ahay inay 95% cid kala qaatay inay iyagu 95% inay Soomaalidu qaataan ma aha waa inay 100% qaataan iyadoo saas markaynu waaqacu nimaadno waa dhul la haysto lagama xishoon xaqiiqatan lagama xishoon oo waxa weeye 5% ayaa la yidhi muxuu ahay ayad qaadanaysaa taasina muxuu ahay xaq maaha cadaalad maaha xitaa haddii la xishoon lahaa oo dhulkaasi waa taxta isticmaal ilaa inta la kala baxayo bal haddii wax loo ogolaan lahaa fiican waaba fiicnaan lahayd laakiin waxaan rajaynaynaa oo aan muxuu ahay haddii ay dhab ka tahay inuu wax hagaajiyo systemkan cusub inuu arrinkaas ay dib isugu noqdaan taliskan cusub ee Ethiopia yimi inay dib isugu noqdaan oo aanay muxuu ahay arrinka aanay nolol shir iman aanay Soomaalida ay ula shir iman waxa weeye dhulkaas waa dhul Soomaaliyeed waxaan u arkaa inay iyagu muxuu ahay yani ay xaq u leeyihiin waxoodo dhan inay qaataan waxaana ka horeeya shidaal ba intaan ka hadal oo inay waxoo dhan dhulkoo dhan wada qaataan bay u leeyihiin iska daa 5% inay shidaalka muxuu ahay qaataan inay dhulkaba ay wada qaataan oo ay meeshay doonaan ku daraan ama muxuu ahay Soomaaliya ku daraan ama Djibouti ku daraan ama muxuu ahay ama iyagu Ethiopia ku daraan ama iyagu madax banaanaadaan waxa weeye dhulkooda iyaga xaq u leh haddaanu imaado dhinaca muxuu ahay arrinka oromada waxa weeye waxa weeye horta hadaynu dib ugu noqono aad baan uga xunnahay horta oo aad iyo aad baan uga xunnahay qof kasta oo aan dambi gelin diintu doona haysto iyo qowmiyad doona ka soo jeeday waa cambaaraynayna in xaq darro lagu dilo qof kasta yani ma xalaalaynayso qofka jinsigiisa in lagu dilo iyo muxuu diintiisa lagu dilo xaq darro lagu dilo yani ma xalaalaynayso kumana baaqayno in la laayo qowmiyadna ma leeno ku baaqmayno xaq darrana ku garab istaagi mayno Soomaalida oran mayno laayo oromada xaq darrana ku garab istaagno oromada oran mayno Soomaalida laayo waxaan ku baaqaynaa horta marka hore Oromiya Soomaali nabad baan dhexdooda ku baaqaynaa waxaan ugu baaqaynaa labada dhinacba waxa weeye inaanay furin arrin cusub oo aan hore u jirin saameyn weyn ayuu yeelanayaa arrinka Oromo iyo Soomaali haddii loo rogo oo ay taliskii hore Tigreegu ay ka dambeeyeen oo ay doonayeen inay isku dhuftaan labada awoodood ee iyaga dhibta ku haya oo kursigooda muxuu ahay dhibta ku haya ayay istiraatiijiyadooda ahayd yani kumanay guuleysan in badan codad badan ba muxuu qayliyo oo yiri Soomaaliya Oromay wala isku kindirayaaye ha furina arrinka Soomaaliduna waxaan doonaynaa inaan fahansiino waxa weeye inaga iyo arrinku ma taagna inaga iyo Oromo wuxuu taagan inaga iyo Ethiopia arrinka hoos u dhigina waxa weeye waxa la doonayaa marka inaga iyo Oromo lagu furayo inaynu wax badan inaga lumaan waxa weeye dadkani waxa weeye waa dad islaam iyo islaam isku dir aqli ma noqonayso jaar iyo jaar isku dir aqli ma noqonayso laakiin waxay noqonaysaa war inaga iyo talis dulmay guud ahaan dadka Ethiopia ku nool iyo inaga aynu arrinku ha taagnaado anigu fikirkaas aan aaminsanahay laakiin inaga iyo Oromada yaanu taagnaan waxa weeye hal laga shaqeeyo in xad loo sameeyo sababtoo ah arrinkan uu aafeynaya Oromada iyo Soomaalida runtii dad yar iyaga laftoodu maaha waxa weeye haddii la isu geeyo Soomaalida oo dhan iyaguba 40 milyan 30 milyan way dhaafayaan marka ilaa Djibouti-dooda loo geeyo ilaa kuwa Kenya-da jooga ilaa muxuu ahay meelahan kala duwan ee Soomaalida xorta ay joogaan iyaguba way dhaafayaan iyaguna muxuu ahay tiro la eg waa laba awoodood oo mantiqada joogta oo islaama oo la doonayo in madaxa la isu geliyo iyo aynu fursadda aynu dhaafino dadka doonaya inay fursadda helaan aynu maanta muxuu ahay aynaan fursadda siin oo arrinku ay noqdo xaq aynu ka tanaasuli mayno marnaba yani dhulkeena iyo xaqeena haddaynu Soomaali leenahay laakiin wadadaasi runtii waa wada keeni karta halis iyo halaag badan keeni karta waana ka xunahay muxuu ahay in cid lagu laayo sababteeda waa maasanta aad u maasanta gabagabadii ayaan soo gaaray waxaan rabaa tan iyo intii ay dhaceen saddex geesoodkiis aragii kulamadii kala duwanaa ee Ethiopia iyo Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea iyo Soomaaliya Eritrea runtii dad badan ayaan arrimahooda siyaasadeed ee kuwii siyaasadda carabta
iyo qaasatan tii Somaliland ayaamahan inta badan ma maqalno ma waxaa jira Eritrea Soomaaliya iyo Ethiopia in maaragtay ay isku garab ay noqdeen oo carabtiina xoogaa laga yara caajisay oo la yiri bal aan ka aamusno mise arrimo kale aan ogeyn baa jira adaa Soomaaliya ku sugan iminka cabdinaasir carabtii meeshii kamay bixin waxa weeye marka albaab ay soo istaagtay laga arkay fashilantay albaabkii la soo istaagaysa waxa weeye meeshan dana badan baa laga leeyahay mantaqadan geeska Afrika waa mantaqad aad u muhiima yani muxuu ahaa dhaqaalahaan istiraatiijiyahan islaamahan waa mantaqad aad u muhiim imaaraadkana waxa weeye waa dawlad la shaqaysata reer galbeedka oo Mareykanku ku yahay waxa weeye waa dawac oo muxuu ahaa waxa weeye uu soo horeeya oo muxuu ahaa waraabaha ayuu ka horeeya iyo libaax ayuu ka horeeya marka waa la soo dira marka waxa weeye dawacaasi wuu joogaa marba meel buu soo istaagaya istiraatiijiyadu muxuu ahaa bedelaya waynu ogeyn dhaqaalihii uu ku deeqay Ethiopia bangigana uu dhigay ee uu siiyay naxariis ba Ethiopia طبعا muxuu ahaa dawladda carabta maaha kuma jirto marka naxariis maaha waxa weeye waa ciyaar cusub oo bilaamatay oo ay tahayna ay Soomaalidu inay fahanto waxaan rajaynayaa inay Soomaalidu inay fahanto oo muxuu ahaa waliba ay muxuu ahaa maamulada Soomaalida waliba dawladda Soomaaliya oo ah dawladda muxuu ahaa laga aqoonsan yahay caalamka inay ciyaartan ay fahanto oo aanay muxuu ahaa dabino ku dhicin saasaan muxuu ahaa ka dareemaya dawladda Soomaaliya inaanay ahayn dawlad nacasa yani qabinimo kuma arko waxaan arkaa inay ciyaarayso ayaan dareemaya inay ciyaar wanaagsan ay ciyaarayso oo ay tahayna inay la wadaagto qaabka ay wax u wado shacabkeeda waa inay muxuu ahaa la socodsiiso oo madaxweynuhu oo badanaaba uu shacabka wax badan fahansiiyo dareensiiyo sababtoo ah waxa weeye fursad baa muxuu ahaa isagana loo helaya oo waa lagu dul fasiraya marka meeshan markaynu ka nimaadno waxa weeye waxa soo engegaya cabdinaasir waxa weeye imaaraadku soo engegaya shidaalkan iyo waxaan soo dhamaanay waxa la yiraahdaa imika wuxuu ku talaabsanaya imaaraadku inuu noqdo dawlad baayac mushtara inuu baayac mushtar ka shaqeeyo shidaalkiisu soo dhamaanaya dekadahan wuxuu la shaqaysanayaa Mareykankii buu la shaqaysanaya meesha China la doonayn inuu soo galo China la doonaya muxuu ahaa inay ku noqoto meel ka caagan China ayaa la doonaya inuu aagan soo galo marka waxa weeye waa isu baahan yahay reer galbeed iyo imaaraadkii iyo dalal badan oo imaaraadku matalaya Sacuudigii buu isaguna xitaa ka wakiil yahay waxay doonayaan mantaqadan inay lug ku yeeshaan oo ay qabtaan meel ay enga ka dhigaan dekadahana qaar ay kharaabiyaan mar ay soo kiciyaan meel ay mar kastaba ay haystaan marka halista ugu weyn ee ku soo socota mantaqadan waxa weeye waa halista imaaraadka halista ugu weyn ee ku soo socota aan in badan ka dignay saldhiga muxuu ahaa imika berbere ka socda waa saldhigyada ugu khatarta badan ee ay tahay runtii in la joojiyo oo ay dawladdu muxuu ahaa yani ka dhaga adeegtay runtii shacabku cid muxuu ahaa ku faraxsan in muxuu ahaa ajaanib u timaado ma jirto laakiin lama dhageysanayo yani lama dhageysanayo arrinka waxa weeye waa arrinka ugu badan ee ugu haleesaysan soo socda haddaan xusay imaaraadka iyo muxuu ahaa joogitaankiisa inuu soo socday imika saldhigan uu berbere muxuu ahaa gacanta lagu hayo ee la siiyeyba yani waxa haddaan ka dhawaajiyay cabdinaasirow waxaan xasuusinaynaa Soomaalida imaaraadku Yemen buu soo baabiyay imaaraadka iyo Sacuudiga waxay ku soo fashilmeen oo ay ku soo baabeen dagaalkii Yemen ayaa inkaar rabbaani kaga dhacday dadkii bay muxuu ahaa soo xasuuqeen reer Yemeneed way soo baabiyeen jeelal buu imaaraadku jeelal waliba muxuu ahaa imaaraadka sii liitay oo gacanta uskaga ah ee Mareykanka iyo Sacuudiga gacanta uskaga ama wajigiisa fashil xun waa imaaraadka waxa weeye waxay adeegsadeen muxuu ahaa saldhigyo maxaa yiraahdaa muxuu ahaa jeelo sira oo ay dadka muxuu ahaa ku cadaabaan jeelal qarsoodiya oo ay dadka ku cadaabaan bay samaysteen khayraadkoodii bay muxuu ahaa rarteen way baaba'sadeen Yemen way baaba'sadeen suuqadra waad maqlaysay gobolo badan oo Yemen kamid ah say u baaba'sadeen oo u yeesheen oo dadka ay muxuu ahaa xitaa warbaahinta ay u laayeen waa laga soo waramaa sidii baa soo socota haddaan laga hortagin ka hortageenu waa inaynu anoniyo naga raali ahaado ka hortageenu waa inaynu maslaxadeena eegnaa maanta waxa weeye madaxda Soomaalidu hadday maslaxadda Soomaalida eegayso imaaraadka haynaga qabato ciid kasta oo soo socota dekadan xidhan waxyaabaha yaab kale waxa kamid ah maadaama aynu arrinka galay dekadan xidhan ee imaaraadku muxuu ahaa baaba'saday dekadii berbere dhaqaalihii uu muxuu ahaa ilaa imika urursanay waxba lagama hayo imaaraadka been baa la isu sheegaya waxaan dhab ahayn ayaa la isu sheegaya waxa weeye istiraatiijiyadiina way isbedeshay
ما دام إنه كهذا إنه إمارات كي إثيوبيا يا صوماليا ما دام إنه كهذا إنه وحوي استراتيجية دي ويس بدشي مركي ورا محل يري دكتة بربرة محل إمارات كلاسيني يا برسنتج كبدن محل لاسيني وحل يري إثيوبيا أنا بقول كسجالة من لاسيني سجالة من كلاسيني وحل يري إثيوبيا وحي هاي ستا كلوات بقول كن مليون أو ضد هالكاسلو سوق جيني ووحينا لكم قنعية سما صح وهي إثيوبيا إمك وحوي وتا أسمر فرطي كينيا وكلاسو دقيسة السودان بكلاسو دقيسة ما هي قبل بدون الصومالية ما هي أي لك كلاسة هذا كلاسو دقيسة مركا دنت هذه بيرعب لا يابنا ملها ولا لا يالو دنتين إنه راعنو إنه ما هي كتحضرنا هل استبدان ما هي إنه قصص عطا ماشان وحوي إن إسكاشدان أنا وحن رتينيا ما ده حدا الصومالي دو إن أرن كان يجوا أو حساسيات بدين يشرين شرتو إن إسكاشدان إن هرجيسي مقدشو أرن كا أي عالم مكربان إسكاشدان أو وده حريران أو أي محين ويهلا وإن إسكاشدان ولا ماشان وحوي إسكميت بيننا صومالي بعدون كاللغة يقانا صومالي بيننا وحوي إن ما أين محسوشة كان خيالية وروحني وين ولا سامينيسا ما أنت هدي معاي مقدشة اللي قبضه يعني وحوي وي سامينيسا ما أنت هدي معاي هرجيسة اللي قبضه كمقدشة سامينيسا مركا وحوي وحنو باقية معاي مدحت الصوماليات وحنو يدون كو باقينا بالله عليكم وحوي ومدينا تاريخ حماها وتجينا أنها إذا كمان أنت أريما بدن قعنتك كويا أنها أو عدو الصوص عدا إسبهاي سنية إنه فكري يردها وما سنتهي وقدام بين محاد كرجينيسا رجيمka cusub iminka madaxweyne Mustafa oo sida la sheegay 2 sano ayuu sii joogay ayaa la yiri Soomaali galbeed calankan la bedelayo magacan la bedelayo iyo rajada qurba joogta ah iyo dadka mandiqada degan ee daris kala ah maxaa rajo aad ka leedahay waqtigii dhowr asbuuc ayuu hadda joogaa laakiin maxaad ka filaysaa sheekadu waxay noqonaysaa business as usual sidii hore mise isbedel aad u weyn oo dadku ay u riyaaqaanayaan ku arki doonaa ugu dambeyntii horta waxa weeye si digtooni leh ayaan xumaa u eegaynaa mantiqadaas iyo isbedelkeeda si xadar leh ayaan xumaa u eegaynaa ku degdegi kari mayno xumaa maxaa soo socda maxaa dhici kara sababtoo ah horta dhulkan waxa weeye dhul la haysto guud ahaan laakiin isbedelkan waxa weeye natafaa'al khayr oo xagga khayrka ayaan rajaynaynaa oo waxa weeye iminka waxa weeye indha khayr aan ka filayno meel aan khayr ka filayno ayaan ku eegaynaa oo waxaan rajaynaynaa waxa weeye isbedelka dhacay oo dadkan yimi ee Soomaalida qabsaday iyaga laftoodu waa dadkii maxaa la cabrinayay taas runtii maxaa iyaga laftooda tusaale noogu filan oo runtii waxaan ka garab siinaynaa oo Soomaaliya oo dhan ka garab siinaysa inay wanaag sameeyaan waxyaabaha maxaa runtii farxadda leh ee Soomaali soo dhaweysay yani nidaamkan cusub waa la soo dhaweeyay ee uu hogaaminayo maxaa Mustafa Cagjar markii ay maqleen Soomaalidu يعني عالمكين هاي أيها السعودية وعالمكين طبعا بلوجها شنطة حديقولها الصومالي شنطة تلمامي ولا سعودية ولا بدل هاي كي ثالث عبدي لي وكاني الآن معناها ويكفردين ولا بدلي صومالي بيوقف فرحة بيوقف فرحة دي إن مقعي هاي دا سائي اللي بدلوه اللي رجل الدولة دي صومالي إثيوبيا اللي راح صومالي إثيوبيا اللي مشرانة حضيه وقبل الصومالي ده يعني ما قبل الصومالي ده اللي بدلوه أما الصومالي ستيت هديانو في جريس يكونوا لهنو لو بدلوا يعني رنتي بأرمهاسي الصومالي ده فرحة قلنيسي هاستي اللي قاعد مدشاس ضدك بفرحة قلنيسي لما أنا الصومالي ده وحن أركي كل جود أو سود وين يكفر أحسن وحن أركي يجو سود وين أو كفر أحسن صوبته الصومالي لما ضدك جداه كذا توا لما ضدك الصومالي ده وحوي عالم كوا كفر أحسن وحن أركي ضد غير صومال لان ولا شيء أو كفر أحسن إن عالم كلا سعودية بلوجا لو سعودية صومالي قلبين معني هذا وحنا نقول هالك كافستي إن دتك جدها صومال لما ذو كشرتوا أي تاير دمبيل دم بسكوا سيهين أو ما هي جدها لكن كشدن أو صومال لما ما هي جدها كشدن ما ملكان حصل وحويه فرصة بدن بوهايستا وين فرصة يعني فرصة ما هي اللي هي حرية بالغ باقية فرصة واستعرايسين كردتك أو تلابوين وما هو حكوا أورا أو ما هي وصمين كرو مركا وحويه ما ملكان وحويه فرصة أيوه هايستا غالية وليبا هاي مستفع أكثر أنا خير بنك رجينيا وحنواركا نين هاي لبدي ساس النضود أنا كوسا فاضي أو حتى لبدي ساس النضود هدي وحوش روايان
inuu hadduu soo sharaxo oo 5 sano dambe ama 4 sano dambe ku guuleysan waayo wuxuu arkayaa inuu si sharaf leh inuu barta kaga tago waa nin aan saa u akhristay oo aan isdhiibay sababta wuxuu og yahay maxaa halka ka jira nin isdhiibayo uma eka sidan anigu aan ku qiyaasayo aan u arkayay halgankiisii aan arkayay waxa uu qoro aan arkayay waxaan arkaa nin imika bilaabay inuu isu keeno dadkii buu isu keenaya imika madaxweyne u noqday oo laftiisu aan buu la hadlayaa wada hadal fiican buu kula yeeshay muxuu ahaayay Addis Ababa muxuu ahaayay maalin aad baan ugu dirsaday qoraal uu soo qoray ninkii muxuu ahaayay shahiidka ahaa Sheikh Deeq ee la isku sawirayay ee gacmaha lagu taagayay ayuu ehelkiisi xaaskiisii buu la hadlay waxa weeye wuxuu ballan qaaday inuu garab istaagay ayuu ballan qaaday marka maanta waxa weeye talaabadaas way fiican tahay waxaan hor taagan oo kale inuu maanta ka shaqeeyo fursad buu haystaa inuu ka shaqeeyo inuu shacabka isu keeno inuu maanta dadka mideeyo ayaa ugu muhiimsan oo uu mideeyo oo uu diyaariyo labadaas sanadood go'aan ay xilli uu diyaariyo labadaas sanadood wixii ka dambeeya in ay dadkaasi go'aan wacan qaadan karaan xisbiya samaysan karaan ay noqon karaan dad fiican ka soo bixi karaan fursad aad iyo aad u qaali ayuu haystaa waxaan filayaa ninkaasi waana nin muxuu ahaayay Cabdinaasir oo nin yani la soo dhaweeyay oo si guud muxuu ahaayay loo soo dhaweeyay khayr baan muxuu ahaayay ka rajaynaynaa insha Allah waxba imika caqabada yar baa taagan oo xagga amniga iyo liyo booliskii tiina waxaan rajaynaynaa inay muxuu ahaayay iska soo dhamaato magacaabistii muxuu ahaayay dawladana muxuu ahaayay shalay maanta ba lagu dhawaaqay marka waxa weeye meelo wacan bay u maraysaa insha Allah aad iyo aad u maastay Cabdimaalik insha Allah waxaanu soo diyaarin doonaa aniga iyo Cabdimaalik asxaabtan dhageysanaysa ina daawanaysa barnaamijyo oo noocan oo kala ah oo aan kaga hadlayno warbaahintii dadkii dembiyada galay dadkii ka fakaday dadkii reerahooda la maagay sidii dawladda ay u magdhawi lahayd sidii wax ugu qaban lahayd sidii loo ogaan lahaa dadka federaalka ku nool gobolada u dhow ku nool dhibaatooyinka geystay marka Cabdimaalik oo imika ku sugan Soomaaliya arintaas ayaanu waqti badan ka hadalnay aan soo diyaarin doonaa insha Allah dawladdan cusubna waxaan u rajaynaynaa guul kulay waa urdan hadda ay dhalatay guul ayaan u rajaynaynaa qof walbana waxa looga baahan yahay meel uu doonaha ka jooga Soomaaliya inuu taageero Cabdimaalik Muuse Coldoon saaxiib waxay ii tahay sharaf iyo karaamo aad weyn in aan ishelno mar kale insha Allah waan soo qabanaynaa waa mahadsan tahay guul iyo nabad iyo waxaan ku rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo adiga dhammaan Soomaalida aad baad mahadsan tahay anigana sharaf bay tahay inaan kula kulmo waraysi wada yeelano mahadsanid ما شاء الله ما سنتين هدو دين بقى برنامجك واحد كده عون كرتان سولا بورتال يوتيوبك يا فيسبوك انت انا هذا كل مدوناني عبد الملك موسى عودون وكسوغان صوماليا وحان دي كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته